mawluhu inagu sameeyay dhamaad ka mid ah sanadihii ugu adkaa ee soo mara taariikhda casriga ee aadamaha sanad lagu xusuusan doono xaal adag oo nolosha bilyamaad qof halis gashay isla markaana bedelay hab nololeedkii maalinlaha ahaa waxaa dad badan waayeen kuwa ay jeclaayeen kaliya fayraska corona ayaaba galaaftay ku dhawaad 2 milyan oo qof inta la diiwaan geliyay Soomaaliduna marka laga tago kumanaanka inaga dhintay sanadkan waxa si gaar ah oo sanadkan ugu santanaan doona in 4 ra'iisul wasaare oo soo maray Soomaaliya ay geeriyoodeen taariikhdoodii iyo xusuusii ay ka tageen aynu barnaamijkan gaarka ku eegi doonaa hadii mawluhu idmo aan ku bilowne bishii Abriil kowdeedii ayuu soo dhacay warka inuu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde bishii Maarch ayay ahayd 26keedii markii la dhigay isbitaal kadib xilligaas oo la sheegay inuu ku dhacay fayraska COVID-19 sida uu BBC-da u xaqiijiyay wiilkiisu Nuur Xasan Xuseen oo loo yaqaan Nuur Cadde waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1938 waxa uu jiray da'da 82 sano muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu deganaa magaalada London ee dalka Britain halkaas oo uu ku geeriyooday waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qabtay 22 November 2007 waxaana uu magacaabay xilkaas madaxweynihii hore Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo hogaaminayay dawladii ku meel gaarka ahayd Nuur Cadde intii xilka hayay waxa iskhilaafeen madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf mooshinno iska soo horjeeda oo baarlamaanka la geeyay kadib waxa loolankaas oo Nuur Cadde ku adkaaday ay qasabtay in madaxweynihii xilka iska casilo 29 December 2008 markaas kadib waxa uu tartamay xilka madaxweynaha doorashadii Djibouti ka dhacday horaantii 2009 taas oo markii dambe ku guuleystay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxbarashadiisii waxa uu ku qaatay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa kulliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda ayuu wax ku bartay macadka sare ee booliska adduunka kadibna Rome wuxuuna ku takhasusay sharciyada la xiriira baarista dambiyada ilaalinta cashuuraha iyo shuruucda caalamiga Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii u horeysay ku bilaabay sarkaal cashuureed 1958 2 sano ka hor intii Soomaaliya aysan qaadan xorriyadda waxaana uu si dalacay ilaa uu ka gaaray heer sare oo la xiriira hoggaanka booliska waxaana la soo shaqeeyay hay'adaha sida Interpol kadib burburkii waxa uu ku wareegay hay'adaha gargaarka